بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا سوبير سلمان channel. هدي ugu cusub tahay subscribe ii saar gambaleelkana furo. asxaabi maanta waxaan noo wadaa cuntooyinka ay cuni karaan dadka qaba sokorta, waxyaabaha u fiican oo sokortooda dejinayso. iyo abaay baa sheekada kowdhaha gabar abaaya iga soo codsatay inaan soo geliyo cajaladaan uma subeer noogu soo hadal dadka qaba sokorta waxyaabaha u fiican. insha Allah waxyaabaha u fiican waxaa ka mid ah qarfaha koow saa u jeedin sawirka aad ka arkoosin qarfaha, aloe vera ama dacaar qof walba soo yaqaano. 3 caano geel, caanaha geel number 1 oo ugu jiraa, yacni caanaha geel aad ugu fiican yahay dadka qaba sokorta. 4 xulbada waaye, xulbo waa la wada kasaa. 5 waxa waaye saliida saytuunka ah. 6 waxay noqonaysaa geedkan qajaar qaraar af Soomaali waaye, qof kale magacu ku kasaayo ma sheegi karo, laakiin qajaar qaraar u kasaa meel walba ka helaysaa. Soomaali way taalaa san filaayo, meesha aan joogno way taalaa, meel walba waa yaala. inta badan dadka ma kasaayaan, laakiin wuxuu eg yahay qajaar uu eg yahay, korkiisa waxaa ku yaala kurtun. insha Allah khair. wili waxaan ku jirnaa waxyaabaha u fiican dadka qaba sokorta. inta badan waxaa fiican inuu badsado cabitaanada, waayo cabitaanka mar walbo aad badsato jirkaaga fitamiin ayaa siinaysaa. sokorta waxa jirkay guweysaa, maxaa la dhahaa hilibkay ka cunaysaa, lafahay ka dhameynaysaa, indhabeelay kugu ridaysaa, adduunya dhan ayay kugu soo furfuraysaa, wadna xanuunay kugu ridee, kaliya xanuunay kugu ridee. adiga waxay ku keenay cudur oo dhan ilaahay naga haayo. inta sokor haysan Allah ka caafiyo. marka mar walba waxaa fiican juuskaaga inoo bato ama biyo caadi cab ama juice inta badan, laakiin ina cabitaanka cabto aad u fiican tahay. haddii aad heli kartid maalintii ina 1.5 oo caano geel aad cabtino wayba kasii fiican tahay. sidoo kale number 5 amareyni waxa u fiican malaaygan aad u fiican yahay. malaayga waxyaabo badan oo qofka bini aadinka ee jirkiisa ugu fiican ayuu ka mid yahay. sidoo kale baamiyaha waxa waaye miro oo aad u fiican waaye. inta badan dhareertadan way u fiican tahay dadka sokorta qaban. hadee mar walbo cuntooyinkan cunaan daawo waa laga maarmaa oo yacni sidii la rabo u isticmaalaan, laakiin waa la cunaa oo yacni waa la sheegay waa cunooyaa camal ma loo baahna. waxaa la rabaa sheyga markii la sheego inaa si oosiyahada u samaysid caafimaad ilaaha haaya, laakiin dadaalkani waa lama huraan mar walba. insha Allah khair. qarfaha waa saa hor u sheegay. huruudka 2 nooc waaye, kan fajaqa oo ayaan dhabeed aad arkayseen iyo kan qaleelka oo budaha ahaan ka wada. labaduba isku mid waaye. huruudka waxyaabo badan oo qofka bini aadinka jirkiisa u taraa, siyaabo badan waa loo isticmaalaa. insha Allah qayb walba waxaan jeclahay inaan mar aan soo qaato sawir walba oo meeshan oo ka muuqato. waxaan jeclahay inaan mar walba hal sawir aan soo qaato oo cashirkan oo taxano inoo noqdo insha Allah biidnillaahi alkariim. waayo haddii aan dhaho hal cajalan kusoo kowa cajaladan way dheeraanaysaa, dadkeeni si fiican ma u fahmayaan. inta badanna dadka ma dhammaysanaya, laakiin 5 daqiiqo markaa qofka oo yacni oo wax qayb kooban aad maanta aashiiso, berin aad qayb kale aasiiso, markaas waxay u noqonaysaa wax oo taxane oo mar walba ay fiirsanayaan oo yacni mar walba ay dhageysanayaan, ay isku dayayaan inay sameeyaan. laakiin jumla haddaan wax walba ku siinaa dhahdid qofkiina waa caajisaa, adigana waa fardabaxe, yacni waa daalaysaa. insha Allah khair. soo dhawaada meel walba joogtiin. uma subiya salmaan waatana. haddii aad igu cusub tahay saa hor u sheegay subscribe, commentiga waa dhiirigelinteena, sheertana sidoo kale asxaabtiin kale la wadaaga. wax waa iga faa'iido doontaan haba yaraatee. insha Allah meesha wax ka faa'iideysan waxaa fiican inaa mar walba aad isku qasaariso like-ta iyo commentiga. insha Allah xulbadana way u fiican tahay dadka qaba sokorta. sokorta waxa sideeda awoor waaye oo qofka bini aadinka asigoo adduunka jooga oo cunaayo, yacni markii la dhinto qabriga la galo dadka awooraa cuno, laakiin sokor markay kugu dhacdo adoo adduunyo joogtid awoor ku cunaysaa. mar walban waxaa loo baahan yahay inaad difaac adiga ka geshid. ilaahay naga haayo cudurka sokorta waa cudur aad iyo aad u xun, laakiin dadaalkiina way iska fiican tahay haddii aad ku dadaasho oo sidee tahay u samayso wax walba oo isticmaalayso. ilaahay biidnillaahi alkariim yacni cudurkaaseti waa kaa baxaa ama waa kaa yaraana, jirkaagana ma isdhimaayo. khudaarta haddii aad badsatid, sidoo kale malaayga aad cuntid,
sidoo kale cabitaanada aan shiidatid hadda geedkan qajaar qaraarka la dhahayo geed aad u qaraar badan waa zaaid u qaraar badan yahay ani waa arke geedkan meel kastaana lagu gadaa suuqayna labada suuq ku yaala Mombasa iyo kuwii kale waaweynka waa lagu wada gadaa sidoo kale aloe-veradana saas aloe-verada dhareerka ku jiro markii la dilaaciyo waxyaabaha dhareerka ee soo baxaya aad galaas biyo ah ku qasato cabtaan ku dhah iyo